magaalada Garowe caasimada maamulka Puntland maanta waxaa ka dhacday arrin aad u la yaab badan kadib markii gabar ku geeriyootay halkaasi loo qabsaday lacag lagu leeyahay oo la sheegay inay gaarayso ilaa iyo 75,000 oo doolarka Mareykanka dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay isbitaalka ay ku geeriyootay gabadha waxaana ay sheegeen in lacag badan ay ku leeyihiin qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in aysan aqbalaynin in la aaso meydka gabadha geeriyootay waxaana ay sheegeen in lacago ay u haystaan hadii la lacagtaasina ay fasixi doonaan in meydka la aaso dadka waxa ay ku doodayeen qaarkood ay sheegeen in hore ay uga codsadeen gabadhaasi lacagta xilliga ay ku lahaayeen in ay lacagta siiso laakiin aysan u cafi doonin ehelada gabadha geeriyootay ayaa waxa ay ummadda Soomaaliyeed ay ka codsadeen in la soo caawiyo sidoo kalena laga bixiyo lacagaha deymaha ee loo haysto waxa gabadhan lagu magacaaba Batriya waxaana la sheegay inay haysatay ilaa iyo 5 caruur ah oo agoon ah lacagta tirada badan ayaa waxa ay ehelku sidoo kale ay sheegeen in dadka ay qoreen lacagta ay sheegteen inay gaarayso ilaa iyo 75,000 oo dollar sidoo kalena ay jiraan dad kale oo wali maqan oo iyaguna ku sheegtay inay deeman ay ku leeyihiin arinta sida aadka la yaab kale waxa ay tahay gabadhani ma ahayn gabar dhaqaale badan haysatay oo waxa ay ahayd gabar danyar ah oo ka shaqeysa xoolo qalitaanka waxaana la sheegayaa maadaama ay tahay gabar danyar ah in lacaga intaasi la eg in lagu yeesho oo dad badan ay soo baxaan kadibna ay dhahaan meydka lama duugay ilaa iyo inta nagala siinayo dhaqaalaha aan ku leenahay ehelka waxa ay ka codsadeen maamulka Puntland iyo dadka shacabka ee reer Puntland in ay gargaar la soo gaaraan sidoo kalena ay dhaqaalaha la bixiyaan si loo aaso meydka oo hadda ku jira fridge-ka maadaama ay sheegeen in aysan aqbali doonin in meydka la aaso maanta si aad ayaa arintaasi looga hadal hayaa baraha bulshada waxaana ay ehelku ay codsanayaan in gargaar degdeg ah la soo gaaro arintan waxyaabaha kale ee dadku ay sheegayaan waxa kamid ah haddii qof walba la siinayo lacagaha ay sheegteen in la dhaariyo si loo ogaado in arintan ay dhab ka tahay maadaama ehelka ay sheegeen inaysan xaqiiqo u haynin lacag intaasi la eg in lagu leeyahay Batriya Allah u naxariiste oo ahayd hooyo haysata ilaa iyo 5 caruur ah oo agooma aha waxaana la sheegayaa in ehelkuna ay sheegeen inay yihiin dad danyar oo aysan awoodin lacag intaasi la eg inay bixiyaan fariin halkan noogu reeb sida adiga u aragtid waad mahadsantiin